biimaalaan nahay gobolka shabeellaha hoosaan u dhahaynaa koonfur galbeeda u dhahaynaa koonfur galbeedna ma aha mid mirifla kaliya uu xukumo mid digil kaliya uu xukumo ma aha mid oo biimaal iyo wixii soo raacay xukumaan ma aha cidii dumis wadow aday ku taal wixii keeshida ka qaadaysaa wax hadal joogo xabadan ku dhameeha hadii istiraid aday ku khusaysaa koonfur galbeed waa dagaalame waana iska dhicinaysaa cadow kasta oo soo wajaho annaga oo ka soo jeedno koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaan garab taaganahay madaxweyne cabdicasiis laftagareen biimaal odayaalkeeda nabadoonadeeda ugaasyaheeda iyo anigoo suldaankii ah waa taageersanaa cabdicasiis hore u soco wixii kugu soo hojumane diyaaraan u nahay hoo iyo hiilaba diyaaraan u nahay cabdicasiis hore u soco ha labaynin odayaasha dhaqanka dhalinyarada aqoon-yahanada beesha biimaal oo ka mid ah beelaha dega dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa si rasmi ah u muujiyay taageerada ay u hayaan maamulkaasi iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen beesha ayaa sheegtay in garab taagan yihiin hoggaanka koonfur galbeed ayagoo bogaadiyay dadaalada maamulka ee ku aadan sugidda amniga xasiloonida iyo horumarinta adeegyada bulshada dhanka kale beesha biimaal ayaa eedan u jeedisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayagoo ku dhaliilay faragelin ay sheegeen in lagu hayo arrimaha gudaha ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya inay ixtiraamto nidaamka federaalka iyo madaxbannaanida maamulka koonfur galbeed si looga fogaado xiisad siyaasadeed oo hor leh mucaaradka oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo colaadaha abaabulayo waa naqaana anaga reer koonfur galbeed aan way ognahay 3 nin 4 nin ugu horeyso oo hormuud u ah waxay ka soo jeedaan ayna isticmaalooyin beelo ka tirsan 9 walaalayaal hor mid ogaada adinka madaxweyne Cabdicasiis 9 madaxweyne uu yahay koonfur galbeed madaxweyne uu yahay degmooyinka Buur-Hakaba iyo Qansax Dheere iyo degmo kamid ah Bakool madaxweyne ma uu ahaa Cabdicasiis maamulkana inta uma dhisnay 3 gobol u dhisan yahay marka hadda adinka hadda ku fakarteen maalinkii dawladda federaalka heshiiska idinka soo saxiixday oo doorashada hal sano kadibna aad dawladda kula xisaabtami weyseen aamusa Cabdicasiis hadan ku fushinaya maamulkiisa hadii dawladda idin tiri aad u aamusteen maanta oo dawladda waqtigeeda oo dhamaaday hadii Cabdicasiis dantii laga lahaa laga waayay xabad ma u qaadanaysaan adin koonfur galbeed dadkiina ma baabinaysaan barkow dad baa dhaqaale idin ku soo qaatay in ay baydhaw xabad kiridaan Buur-Hakaba xabad kiridaan Qansax Dheere xabad kiridaan Waajid xabad kiridaan Xudur xabad kiridaan war xabada la ridaayo waxa ku dhimanaya idinka waay nin siyaasi ah Muqdisho jooga oo mukeef ku jira oo dawladda federaalka xil u dhiibtay inay lacag soo siiso idinkii wiilashiin la isku dilo arintaas arin la qaadan kara ma aha reer koonfur galbeed Soomaaliya way diiday mana qaadanayso idinkan waxa idinkaga digaya dadiyooga shacabka ka soo jeedo koonfur galbeed Soomaaliya in arintaas diidaan waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo dawladda koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed Soomaaliya dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waajibaad ayaa ka saaran in ay difaacdo dadka iyo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya laga bilaabo siinka dheer ex control afgooye ilaa xuduudeena meesha ay jirto marka hadii aan nahay bulshadaasi anaga garabkaaga nahay madaxweyne waxaan kugu baaqaynaa si dhaqsiya leh dadka reer koonfur galbeed ee 3 gobol ka soo jeeda ee Baay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose in gogol aad ugu baaqdo oo gogol nabadeed ah oo gogoshaasi loogu hadli doono xaaladaha ay ka taagan ee maamulka koonfur galbeed ee ka jira ee soo cusboonaaday dawladda federaalkan waxaan leeyahay madaxweynaha ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynuhu waxa maanta koonfur galbeed ka socdo ee maanta aad hormuudku u tahay waxaan ka diidnay qolooyinka mucaaradka ah marka adigna ka yeeli meelo in markaasi aad arinkaasi u horkacdo maamul oo beriga xabadad lagu bedela la dhahayo man soo marin waxaa mar dhow dawladda federaalka aan ka aragnay ayadoo Jubbaland oo xabada lu bedela dhaheeso dawladina lagu soo adkaaday marka maamul
markiis meel ka jiro ka soo qaad koonfur galbeed koonfur galbeed dadka reer koonfur galbeeda iskale digir iyo milif ma laha 9 dadka dhahayn ma laha maamulka koonfur galbeeda leeyahay waxaa madax u ah cabdicasiis lafta gareen cabdicasiis lafta gareen maamulkaas joogitaankiisa mid asi jeebkiisa aska samaysti ma aha waxaa raali ka ahayd dowladda federaalka makasti dowladda federaalka raali ahaashaheeda oo beriga oo ma aragtay halkan sano asku jooga haddii dowladda federaalka raali ahaashaheedii oo halkan sano lagu joogi oo beriga maamulkii haddana wax ma ay leedahay dowladda federaalka xabadan gudumiyena mid shaqeeheesa ma aha maxaan jira guryihii oo dagaaladii sokey ay naga dudumiyeen oo hadda dhisni haddana waa ni dudumiyena maho saas maana warka saas waay reer koonfur galbeedaan nahay ma yeeleyno in maamulkayna xabad lagu dumiyo waxaan rabnaa maamulkayna arrintiisa inay xal ku dhammaato xoog cid u adeegsan karta ma leh maquuniyey ma jirto wax la dhibay ma jirto waxa sida ay u qabsadeen ay u taagan yihiin waxa koonfur galbeed hadeer doorashan qabsaha idoo dhahayso loo anyuraareynayo loo dhibaateynayo waxa aniga aan ka rabay waa ka waysanahay waaye madaxweynaha dalka Soomaaliya waxa ku harsan waa wax yar waa 2 bilood iyo wax ka yar ku harsan waxaan rajaynaynaa dalka Soomaaliya intaan wuxuu ku soo jiray qoro isku dhiibkii khalad hakeenin adoo nidaam ah aad timiday adoo nidaam ahna ka tag haddii nidaam aad ku tegi waysid ee dalka iyo dadka oo hadeer baahi iyo oon ku jiraan mar labaad iyo mar saddexaad in aad xabad geliso oo sida aad doonto aan ka hela ama sida aan rabaan ka yeela xabadana ku yeela haddii aad dhacdo koonfur galbeed way diiday wada jir ah aan isugu imaanay shir gaar ahaan aan ku taageereyno gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan koonfur galbeed anagoo ku hadlayo codkii nabadoonada anagoo ku hadlayo koonfur galbeed waxaan 1 iyo 2 iyo 3 aan ka leeyahay wax hadda ka socdo koonfur galbeed waa wax aan macnaa loo adkeysan karin oo fal xun ah ayaan meesha macnaa ayaan ka shireynaa koonfur galbeed ma ahan cunug farta laga haayo koonfur galbeed waa dagaalame waana iska dhicinaysaa cadow kasta oo soo wajaho annaga oo ka soo jeedno koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeelaha hoose waxaan garab taaganahay madaxweyne cabdicasiis lafta gareen waxaan ku leeyahay mudnaantaada adiga iska leh hoos ha uu rogmin ha baqanin garabkaagaan taaganahay mudane madaxweyne iska dhici cadow kasta oo kusoo hajuumo ilaaha garabkaaga joogo annaga garabkaagaan taaganahay markaan iskugu imaanay inaan taageerno madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waana taageersanaa annagoo ah beelweynta biimaal odayaalkeeda nabadoonadeeda ugaasyaheeda iyo anigoo suldaankii ah waa taageersanaa cabdicasiis hore u soco wixii kugu soo hojumane diyaaraan u nahay hoo iyo hiilaba diyaaraan u nahay cabdicasiis hore u soco ha labaynin ugu dambeyn beesha biimaal ayaa ku boorisay dhammaanba dhinacyada siyaasadda dalka inay ka shaqeeyaan wadahadal iyo safgarad si loo xoojiyo midnimada iyo xasiloonida Soomaaliya. Ismaaciil Ibro, Somali Cable, Muqdisho.